sanad kasta maanta oo kale waxaa dunida laga xusaa maalinta caalamiga ah ee badaha iyo xeebaha iyadoo loogu talagalay in laysku wacyigeliyo ahmiyadda weyn ee baduhu u leeyihiin nolosha baniaadamka iyo guud ahaan dunida. haddaba waa sidee xaaladda badaha Soomaaliya? waxaa khadka magaalada Muqdisho toos ugu jira Maxamed Xuseen oo ah agaasimaha ururka daryeelka deegaanka ee Greenwatch Trust. Maxamed, soo dhawow. marka ugu horeysa maalintan muhiimadeeda iyo waxa laga faa'iidi karayo bal si kooban nooga waran. aad iyo aad u mahadsantihiin fursaddan ay noo siiseen bahda BBC Soomaali xusida maalinta badweynta caalamiga adduunka istaragalka ama xusida maalinta caalamiga ee badda adduunka waxa uu soo bilowday 1992 wadamo badan oo dhowr ah oo ololeynayo Canada ugu tun weyn tahay, laakiin si rasmi ah waxay u aqoonsatay qaramada midoobay 2008 bishii June inay noqoto maalin badda caalamiga badweynta caalamiga adduunka. annagana waxaan isku daynaa inaan bulshada ama meelaha hoose sida primary ama iskuulada dadka yar targetkeena uu yahay inaan tagno oo wacyiga ama awareness kor u qaadno anagoo ku barayna habab badan oo isticmaalayno sida artistka iyo inaan mararka qaar tagno baxeebaha aan kelin gareyno oo bacaha iyo plastic dhibaatada ay leeyihiin bulshada ka wacyigelino. waa gartay waad ogtahay badda Soomaaliya mar walba wax laga soo sheegaa dhibaatooyinkaasi maxaa ka mid ah intii aad shaqadan ku jirteen ku ogaateen? waa dhibaatooyinka badda Soomaaliya sheegay waa dhibaatooyin aad u fara badan una baahan daraasaad iyo jaamacado inay saxaya ku soo qoraan, laakiin si dhowr markii la imaato arrimaha badaha ama deegaanka kale Soomaaliya waxay ku jirtaa wadamada aan aad loo amaanin markii imaato deegaan dhowrka. waxyaabaha ugu weyn hadda dhibaatada noo haysta waxaa ka mid ah waxyaabaha loogu magacaabo single plastic use-ka ama bacda loo isticmaalo halka mar sida biyaha caaga laga isticmaalo ama xanjada ama bacaha lagu soo adeegto, taasi oo badii lagu tuuro ama si maadaama regulations badan oo aad u daciif u yahay then markii badii iyo wixii ay gaaraan malaayigii ku loonaa ama dhirtii ku nooleed ama xayawaankii kale ay ka xirto photosynthesis-ka then ay ku dhacaan oo isticmaalo annagana hadhow malaayigii weynaa aan cunno. halkaasi marka waxaa nooga imaan kara cudurro aad u badan oo sida kansarka iyo waxyaabo lamid ah. marka aad iyo aad waxaa dhibaato badan uga haya single plastic use-ka oo waxyaabaha anaga naga yimaada si locally ah. internationally de waxyaabaha hadda laga qoray article waa jiraan oo la sheego laakiin wax xaqiiq wali uma hayna. waa gartay halku dhaga sanadkan maalinta daryeelka baduhu waxa weeyaan badaha iyo sida uga faa'iideysan karayaan dadka noloshooda ay ku tiirsan tahay. maxay yihiin caqabadaha imika hortaagan dadka iyaga noloshooda ay badda ku jirto sida kalluumaysatada ama dadka kale waxyaabaha kale ka sameeya ama dalxiiska? caqabadaha dadka haysta maxaad nooga warrami kartaa? aad iyo aad mahadsantahay bidhaan, waa su-aal aad u wanaagsan. Soomaaliya mar walba waxaa ku dhaca abaaro, haddana mararka qaar waxaa lala yaabaa in loo sheego in aan leenahay xeebta ugu dheer mainlandka oo Africa ah, haddana waxaa u malaysaa bulshadii iyo wacyigii ama kalluunkii inay caqabado badan ay kasoo wajahaan ama wacyigooda aad u yaryahay. tusaale haddaan idin siiyo markay timaado kalluumaysiga dadka weli waxay u kalluumaystaan sidii u kalluumaysan jireen 100 sano ka hor. ma haystaan agabyo ama skills ama training fiican ma haystaan sida GPS-ka touriska. mararka qaar waxaa dhaca duufaano ama cimilada isbedelka sida tsunami oo kale adduunyada waa la wadaagaa wadamadooda. marka isku xirka ka dhaxeeya bahda kalluumaysatada ama iskaashatada oo kale ama dawladda ama waxyaabaha quseeya NGOs-ka oo kale ama hay'adaha ku shaqo kale aad ayuu yaryahay ama waa daciif. sidaa daraadeed mar walba waxaa arkaysaa kalluumaysato la waayay oo badda ku dhacday ama xilli badda aan la gelinayo. waan gartay waxaan kusoo gabagabeynay iminka idinku waxaad tihiin dhalinyaro koox oo is urursatay oo baddii ku dadaalaysa. baddii Soomaaliyana way dheertay, wadiga arkay hawshiina way badan tahay. marka dee annagoon idin niyad jabinayn baraje intee lagama qabtaan inaad hawsha intaa leg wax ka qabataan ama yaa wax idinka caawin karayaan? والله رجدي وين أقبل وحين قلنا صار رجدي إلهي، لكن ما دام أنا أقولت أو حصو برناي مرة البنا الله شيء غفكم مركوح أو برناي ونضد كيسة إذا تيس وقع عنفع أو برناي at least يحال if there is a will there is a way. marka waxa way anada wadadayaan bilaabayna ma aha inaan bari Soomaaliya dhanka wada shaqeeyeen ma aha sanadkii laga yaabo in xataa nolol aan ku gaarin, laakiin waxa laga yaabaa jiilka soo socda ama mustaqbalka imaanaya inaan u iftiimino muhiimadda ka dhaxaysa ama xiriirka ka dhaxeeya badda ama deegaanka inuu noo qurxoonaado. that's why targetkeenu uu yahay barnaamijka ardada dhigata dadka waaweyn artiska waxyaabo badan ay ku fahansan yihiin. aad iyo aad baad u mahadsan tahay gudoomiyaha Greenwatch Trust.